madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky waxa uu maanta si cad u diiday in Shiinuhu uu qayb ka noqdo dalalka damaanad qaadaya amniga Ukraine oo gudaha dhulka Ukraine ciidamo geynaya isaga oo yiri Shiinuhu ma noqon karo damaanad qaade amni ee Ukraine. Ruushka oo ogolaaday in damaanad amni la siiyo Ukraine marka dagaalka la joojiyo ayaa soo jeediyay in Shiinuhu qayb ka noqdo dalalka damaanadda bixinaya. maxay ka dhigan tahay in Zelensky diido Shiinaha? Waa go'aan uu hore u xisaabiyay Ruushka. Diidmada cad ee Zelensky waxa ay albaabka u furaysaa khilaaf kasta oo Ruushka uu ku heli karo saddex faa'iido midkood. Tan koowaad ee Trump iyo reer galbeedka waxa ay u degdegayaan in dagaalka la joojiyo. Waxaa suuragal ah inay ku qasbaan Zelensky inuu ogolaado Shiinaha haddii aysan talaabadan qaadin oo Mareykanka iyo dalalka reer Yurub iyaguna diidaan in Shiinaha damaanad qaadayaasha amni lagu soo daro. taasi waxa ay ka careysiinaysaa Shiinaha waxaana dhinaciisa lagu soo jiidiyaa inuu dagaalka qayb ka noqdo oo uu ballaariyo taageerada uu siinayo Ruushka sababtoo ah marka Ruushka uu soo bandhigayay in Shiinuhu loo baahan yahay waxa ay adeegsatay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka in Shiinuhu yahay quwad aan maanta la iska indhitiri karin. Hadalkan waxaa loogu talagalay in lagu kiciyo dareenka Shiinaha oo loogu dhigo Ukraine goob uu ku soo bandhigi karo saameyntiisa. Shiinaha waxa uu mar waliba u arkaa waxa uu wanaagsan in reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka lagu mashquuliyo dagaalka si la mid ah istiraatiijiyadda waxaana ku jira dagaal weyne kasta oo galbeedka iyo bariga dhexmari kara in uu ka dhaco meel ka fog dhulkiisa isaga oo taa u arkaya waxa uu xoojinayaa Ruushka si aan dhinaciisa dhulka loo dhigin. Marka dhinaca kale laga eego Ruushka waxa uu u arkay faa'iidadiisa in magaca Shiinaha uu ku soo daro dagaalka Ukraine hadda waxa ay kubadda hor taallaa Mareykanka.